السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaashayda qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasto aad kaga sugan tihiin daafaha dunida isla markaasina aad naga daawanaysaan waa barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono soo dhaweyntii mug iyo miisaanka lahayd ee bulshada reer Gabiley madax iyo mijaba ay ku qaabileen wafdigii uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi wafdigaasi intii aanu soo gaadhin magaalada Gabiley ayaa waxa lagaga hortagay kantaroolka dhinaca bari ee deegaanka Caabudullah oo ka tirsan Gabiley halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen madaxda iyo mas'uuliyiinta gobolka Cuqaal Salaadiin iyo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee reer Gabiley harkiisa lagu nastaa halkaasa lagu degaa dhulkaaga lagu ogaa harkiisa lagu nastaa halkaasa lagu degaa intaasi kadib waxa loo soo galbiyay wafdigaasi uu hogaaminayay Maxamuud Xaashi Cabdi dhinaca magaalada Arabsiyo halkaasi oo sidoo kale ay bulshada reer Arabsiyo soo dhaweyn meeqaam sare la ku qaabileen wafdigani uu hogaaminayay Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa waxa uu ka qayb galay isla markaasina uu dhagax dhigay munaasabada dhagax dhiga wado 1 kiiloomitir ah oo laga hirgelinayay magaalada Arabsiyo isla markaasina ay maal gelinayaan golaha deegaanka Gabiley madashaasi oo ay ka hadleen qaar ka mid ah madaxda dhaqanka iyo maamulka magaalada Gabiley iyo Arabsiyo waxaana mas'uuliyiintaasi hadaladoodii ka mid ahaa sida tan oo leenahay ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada gobolkii cagaarnaa ku soo dhawaada degmadii wax soo saarka Arabsiyo ma sha Allah waxaan ugu mahadcelinaynaa dadweynaha reer Arabsiyo sharafta leh maamulkooda iyo dadweynaha isu duubay ee magaalada Arabsiyo la dhex dhigaa waxa weeye wax xukuumadda iyo wax qabadkeedii waxa weeye farabadan baa u soo raacdo inaan soo koobi karayn waxaan leenahay dadweynaha reer Arabsiyo sidii la ugu hiilisaan xukuumadda ayay idinku hambaysay gobol deegaan ahaan sharaf bay noo tahay gobolka degmo kasta oo kamid ah sanad kasta wax baan ugu darnaa hadday tahay wadada Wajaalo 2 kiiloomitir aanu siinay hadday tahay wadada Allay Badayo 1 kiiloomitir hore aanu siinay maantana aanu halkan kaga dhawaaqana 1 kiiloomitir labaad oo soo raacaya 1 kiiloomitir degmada Arabsiyo runtii aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa waqtiga kooban reer Arabsiyo waxa leenahay idinkeedii taagan sida xisbiga hore ugu soo saarteen ayaa maanta la idinka filaya inaad soo saarto noo hiilisaan aad iyo aad waxaanu ku soo dhaweynaynaa haddii aanu nahay degmada Arabsiyo wasiirka madaxtooyada iyo xukuumaddiisa iyo wasiiradiisa la socdaa dhammaan reer Arabsiyo waxay aad ugu soo dhaweynayaan soo dhawow bay leeyihiin
ku soo dhowow gobolkaagii degmadaadii u horraysay arabsiyo saacatul wasiir ku soo dhowow bay ku leeyihiin in yar haddii kolley aanu maanta dhagaxdhigga gobolka dawladda hoose ee gobolka gabiley uu dhagax dhigayo waddadii ugu horraysay ee magaalada arabsiyo uu marinayey haddan iminkana saacatul wasiir ee arabsiyo dawladda hore waxbay ugu qabatay oo waxa ugu horreeyey gabyankaa xabaalaha laga xidhaayo dawladda kulmiye aad iyo aad ba u mahadsan tahay waa dawladdii waxqabad waa dawladdii waddanka aad wax ugu qabatay iminkii haatanna waxa ay reer arabsiyood kugu soo dhowaynayaan intan iyo in ka weynba inaad u hayso ugu horreeyo ceel biyood oo maanta kaa iminka uu ku jiraa haddii uu maanta uu ka yar fadhiisto magaaladaas way biyobeelaysaa mid yar baa jirta waxaa jirta goob caafimaad oo xanaano yara waxa weeyaan laba doox baa hareeraha magaalada arabsiyood ka mara dumarka umulisada ah islaanta maanta dhakhtarkaasi uu wax ka qaban kari waayo lama orayo wakhtiya roobaadka dhibaato weyn baa ku dhacda inta isku go'day halkaa dumari maanta isku go'day saacatul wasiir baabuur ambalaas oo maanta dumarkaa gurmad loogu sameeyo oo amba gabile loogu ordo amba hargeysa lagula ordo magaalada ma dhex yaala wasiirkii caafimaadka iyo wasiirkii madaxtooyada iyo wasiirkii beeraha dhammaan waxaanu leenahay magaalada arabsiyood ina aad maanta u soo jeesataan inaad kilomitirka ay dawladda hoose gobolku ugu daray inaad idinkuna maanta aad kuba darta wasiirka madaxtooyada dee laba kilomitir oo kale waan idinka codsanaynaa insha allah hadiya waxba kale ma haro nin walba uu soconaya ninbaa geed beera geedkaa la yidhaahdeedna geedka hebel beeraynaya nin waloo maanta joogo mas-uulihowga waddankaaga sidaad ugu qabanaysid ee aad magac uga reebaysid adigay kuu taallay waddankaasi waa maalintii koowaad ee laami arabsiya dhex mara la dhagax dhigo weliba qaab sharafa loo dhagax dhigo oo intaasoo wasiire ka soo qayb galaan waxaa mar labaad mahadda labaad waxaa iska leh golaha deegaanka ee gabiley oo ay u horreeyaan meeyarka iyo xogayaha iyo fulinta oo iyagu fulinaya waddadaa laamida ah ee halka kilomitir ah ee maanta ay arabsi ugu deeqeen waxaa kaloo mahadda iska leh guddoomiyaha sharafta leh guddoomiyaha horumarka gudoomiyaha gobolka barsaabka gobolka master xamse oo isagana xilligiisii ay ku soo beegtay oo hawshaasi qaybtiisa leh waxaan idinku soo dhowaynaynaa degmada wax soo saarka degmada barwaaqada degmada nabadgelyada ee arabsiyo walaalayaal runtii haddaan idiin iftiimiyo socdaalka waftiga waxa uu daaran yahay waa laba qodob qodobka koowaad inay inoo baarigaan diiwaangelinta qaybtii hore ee aynu sida wanaagsan ee firfircoon kaadharkii u qaadannay inay inagu baraarujiyaan oo inagu dardargeliyaan inta inoo hadhay inaynu dhoobada soo qaadno dhooba soo qaadka soo garan maysaan waa inaynaan xabad ka tegin haddii allaha awoodda la ogolaado inuu ilaahay la kaashanaynaa intaa markaynu samayno ee aynu kaadharka qaydano xukuumadda maanta jirta ee xisbigeedu waxqabadka ay dhammaan jamhuuriyadda somalilan u qabteen haddaynu imika bilowno waagaa inoogu bariyeen waxay gebiina u qabteenna indhahaynaa macallin inaga dhex jooga waxa inaga dhimanna iminka iyo inta soo socotaba waa laynoo qaban doonaa insha allah biidnillaahi baari aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa gobolka gabiley degmada arabsiyo sharaftii iyo hospitalitigii laydinku yaqaanay soo dhowayntii sida fiican ee quruxda badan lee noo soo dhowayseen aad baan idinka mahadnaqaynaa waa dhaqana lahaydeen waa mid laydinku yaqaanay waxa weeye waa strong hoolka had iyo jeer xukuumaddan had iyo jeer ay farta ku soo fiiqdo lagu xisaabtamo waxaan u soconnay laba ujeeddo saabra saabkuu sheegay ujeeddada koowaad ee muhiimkeen maanta u soconnay waxa weeye kaadh qaadashadii kaadhkiibaa 14 dambe inoo galay shantii hore way dhammaadeen shantii hore waxay ahaayeen sanaaduuq meelo badan bay yaalleen laakiin waxaa laga yaabaa imika arabsiyo keliyana in 2 sanduuq la dhigo ama sanduuq gabiilayna la dhigo 2 sanduuq gabiilay sanduuqa ama labadaas sanduuqee yaalla kaadharkii goobaha oo dhan baa la wada keenaya hamoodina markii laga soo qaado goobtii aad ka diiwaangelshanayd haddaanad kaadhkii hore u qaadan in kaadhkaagii la celiyey waxaad ka helaysaa gabiilay qof kasta waxaanu ku boorinaynaa inuu kaadhkaa qaato gabiilayna tago
oo kaarkiisa halkaas u yaalaaye yaa tashiish lagugu furay kaarkaaga dhowr nooc baad ku helaysaa moobilkaaga nambarkiisii baa ku qoran magacaagii afraad baa ku qoran kii hooyadaa baa ku qoran sawirkaagii baa yaalla sinaba u waayimays hadday warqaddu kaa luntay kaarkaa waad qaadanaysaa waxaan ku dardaarayaa in kaarkaa ay qaataan gobolka Gabiley iyo degmada Arabsiyo inaanay fudeedsan waa la socdaa nambar wanaagsan baa ka qaatay meelaha la majiiranaya ee sida fiican u qaatay waxa ka mid ah gobolka Gabiley nambarkii aan register gareyseen nambarkii aan iska register gareyseen iyo teen out ka imka soo baxay runtii wax aad lagu farxo weey inta yaray nooga hadhayna raaciya waxa jira waa gobolkii Greenka xisbiga kulmiye la yiraahdo calankiisu waa laba nooc waa yellow iyo green green ka Gabiley idinka la idin qaatay calankaasi aanu hoosaynin calankaasi waa inuu noqdaa mashaariicda laga fuliyay gobolkan anu wasiirkii qorsheyntii horumarintaana ee mashruuca ugu weynaa baa qariseen mashruuca ugu weyn Arabsiyo ka bilaabma bici baa leeyahay wuxuu socdaa ilaa iyo xeeb u socda waa Gaabiyan ku xiraya wasiirkii beeru waa kan weyla wadaaga waa 6 milyan weyn waxa weeye horumarka dawladda ka mid tahay mashruucaasi dhawaan ku dhammaan doona insha Allah biidillah beer dambe uu daadgalaya ma jirto waxa kaloo isagana soo socda oo nasiib u hesheen oo soo saxeenay maalintii dhaweyto wadadii ka imanaysay Berbera ilaa halka oo ah wadada cusub inta baysaankan ciidu kalimayna gaadhin ku hagaagi ma bridge baynu dhiganaa bridge weyn aynu dhiganaa saciid waan ku soo dugnaanay maxamed xaaji saacad baa ku soo dugnay marka horumar fara badan bay soo socdaan wax fara badan baan filaynaa laakiin balanteenu waa goorma kaarkaynu qaadano iyo 13 intaasi kadib wafdigani uu hogaaminayay Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka wasaaradda madaxtooyada oo ay ku wehelinayeen wasiirada qorsheynta qaranka Mastar Qabiyo Tire wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Cakuse wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mastar Xagle Toosiye fayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Cige Mastar Deer agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Marwo Khadra Xaaji Ismaaciil Yuunus Khadra Xaaji Geed ayaa waxay soo dhaweyn la yaab leh kala kulmeen bulshada reer Gabiley halkaas oo bulshada reer Gabiley ay ku qaabileen isla markaasina wafdigani uu hogaaminayo Maxamuud Xaashi Cabdi ay u dhigeen rooga cas ee saaxiibka u ah karaamada isaga oo mid u qacan qaaday Maxamuud Xaashi Cabdi dadkii halkaasi ku soo dhaweynayay hawkar iyo maaha farasiyo lama degaan farasiyo boordaho carrad hoostay marka waxay u wataacagaan bulshadua habar wadaag hilbiyo dhiig wada dhasho himila ku midoobayo adag bay wada qabaan himila ku midoobayo adag bay wada qabaan habeenada kiilaway hayaanoo way hagaaran heetiya way kabaan bulshadua habar wadaag hilbiyo dhiig wada dhasho himila ku midoobayo adag bay wada qabaan himila ku midoobayo adag bay wada qabaan habeenada kiilaway hayaanoo way hagaaran heetiya way kabaan hormuud meelaad u tahay haliyey meelaad ka tahay hormuud meelaad u tahay haliyey meelaad ka tahay u tahay odanaad ku tahay qofay badnaad ka tahay u tahay odanaad ku tahay qofay badnaad ka tahay dalkaaga laga helaa dalkaaga laga helaa
soo dhaweyntaasi kadib waxa wafdigani uu hogaaminayay maxamuud xaashi cabdi u soo kicitimeen isla markaasina loo soo galbiyey dhinaca gudaha Gabiley ugu horreynba waxa uu soo kormeeray maxamuud xaashi cabdi iyo wafdiga uu hogaaminaya goobaha ay ka socoto qaadashada kaarka codbixiyaha ee muwaadinka oo wajigii labaad gashay inkastay weli nagu badan tahay haddana komishinaaradii nala joogaan wuu la shaqaynaya macalinkaygii baa la shaqaynaya marka gabiile sectionkii gabiile baan wadnaa gabiiliga hawsha ku badan tahay wajaaliya qaybii kana waa galaasiyadan kale marka dadka nagu badan waa gabiile sida sectionada u noqonaya marka hawshaas nala socota inay ka qayb qaataan munaasabad wajiyo badan xambaarsan isla markaasina iskugu jirtay soo dhaweynta wafdigani uu hogaaminayay maxamuud xaashi cabdi iyo weliba daahfurka wajiga labaad ee wacyigelinta qaadashada kaarka codbixiyaha ayaa waxa lagu qabtay hoolka shirarka dawladda hoose ee Gabiley madashaasi oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Gabiley madax iyo mijo caruur iyo ciroole ayaa waxa ay halkaasi si kal iyo laabo ugu soo dhaweeyeen wasiirkani maamulka gobolka Gabiley iyo ka degmada Gabiley oo iyagu bulshada reer Gabiley uga mahadnaqay soo dhaweyntani ayaa sidoo kale waxay tilmaameen in iyaga oo ku hadlaya afka bulshada reer Gabiley ay soo dhaweynayaan wafdigani isla markaasina soo dhaweyntani ay farriin u tahay axsaabta mucaaradka ah ee iyagu xisbiga talada haya kula loolamaya gobolkani dhammaanba mas'uuliyiintii halkaa ka hadlay waxaa hadalladoodii ka mid ahaa sida fiican ee sharafta leh ee qiimaha leh ee aad wafdigan u soo dhaweysay waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo furitaanka xafladan maayarka magaalada Gabiley mudane maxamed amiin cumar cabdi si uu isaga laftiisu kelmadiisa halkan uga yiraahdo ku soo dhaw maayar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato madaxweynaha qaranka Somaliland ha noolaato xukuumaddiisu ha noolaato dadweynaha reer Gabiley sharafta mudan ha noolaadaan aad iyo aad baan intii walaalay ku mahad celinaynaa wuxuun bay ka turjumaysaa kalgacalka wanaagga sharafta iyo qiimaha aad u haysaan madaxda qaranka ee uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada soo dhaweyntan xamaasad ku dheehan tahay ee ka soo bilaabantay min caamudla ilaa iyo hoolka aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa wasiir adiga iyo wasiirada iyo wafdiga hogaaminaysaanba reer Gabiley waa kuwa
قبل ولا قوي شرفته ذي كرامة الحكومة وهي حكومة وتعاقبتين وقت ما تعرفون وقت عيربان الحسب غير ما توتر تمام مرة بعد هجان كذلكنا وكوكو ليست هجان كذلك رنتو قرآن كوالا ينوب فري برنامج يبدو بينه يلا هذا الكون يسكسو كومي دونا أبان وفد جوسر دويننا يدك أبان يكون هالعيلنا سيدا لقد واتيه لما قلب أي وفد جماعة ينوبيه قلب ككوبادو حوالي إلى ينوب ديريجليا أو ينوب ثواب الشيء oo ay nagala qayb galaan sidii gobol ahaan aynu kala qaadashada meel cad isaga taageereen runtii dadweynaha maamul ahaan aad baan ugu mahadcelinaynaa gudaha iyo dibaddaba tuulooyinka dadka xag ka talaabsan ilaa dadka Soomaaliya dhexdooda jooga sida miisaan kale ee hawlkarnimada leh ee samir kale ee u qaadatay taariikhii ee aad u gudanaysaa xaqiiqii historiga boqolkiiba 70 kaararkii way maqaadanay wuxuu baa inoo dhiman boqolkiiba 30 kaasi inaan hal kaari naga noqon ayaynu maanta isu dardaaranaa oo ay waqtiguna inoola socdaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waynu isku ognay dadkii dhintay allaha u naxariistay mooyaane qof kale oo kaadhkiisu noqda inaanu jirin gobolka Gabiley ballanta soo ma qaadno ballanta mid kalena ballanteeda la idinka rabo maanta markaynu kaarka qaadano 13 bisha 11 kaarka halkaynu dhiganaa kulmiya soo maaha way dhamaatay aad iyo aad baan mahadsantihiin runtii waxaan aad ugu mahadcelinaynaa wasiirka madaxtooyada Somaliland oo maanta halkan u yimiday marka laga yimaado mashruuca ay dawladda hoose fulinaysay aynu arabsiyo soo dhagax dhignay mashruuca halka kiiloomitir aynu degmada allay baday ugu deeqday dawladda hoose ahaan marka laga yimaado wasiirku maanta wuxuu inoola socdaa intaa dheer wuxuu inoo dhammaystirayaa gobolnimadeena in yaroo cibro iyo qoladaasi ku fadhido unbaa dee u dhinnay inta kale xukuumadda Axmed Siiraayana hal yaroo qodob baynu yar xoqi jiray qodobkaasina wuxuu ahaa qaybtii booliska ee gobolka oo kira inaga jirtay qaybtiina maanta waa la inoogu daray haddii ay dadka mucaaridkiisa yiraahdaan meelaha wax yar soo yar dhexgeliya gobolnimada Soomaaliya gobolnimada Gabiley madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo boqolkiiba boqol ayuu dhammaystiray intaasoo wasaaradood baa laynoo dhisay xaruntii gobolka laynoo dhisay maantana waxaa laynoo dhisay xaruntii booliska ee heer gobol waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa mashaariicaha qiimaha leh kala duwan ay xukuumaddu ka hirgelisay gobolka Gabiley hoolka aynu joognay iminka quruxda badan laynu u fadhino ilaa iyo waddada Wajaale waddada Kalabayr Dila gabiyanka arabsiyo ceelasha biyaha laga qoday agabar min geed abeera min botor wasaaradda isbitaalka Wajaale ka arabsiyo ka Kalabayr maynu tirin karnaa xukuumadda wax alla wax ka horeeyay oo wax qabadi intii muujin waxa leenahay xukuumadda waa abaal leedin hayo waa abaalka ay dadweynaha reer Gabiley ka hortiina ku ballan qaadayaan inay celin doonaan aad baan idinku mahadcelinaynaa hadalka waynu soo goobanaa waftiga mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba si qiimo leh sharaf leh karaamo leh waan gobolka idinku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan idinkana shacabkayga aanu jecloon idinku mahadcelinaynaa waa mahadsantahay waxaan jecelahay halkan inaan uga mahadnaqo waftiga uu hogaaminayo wasiirku oo maanta inoogu yimi inay nagu baraarujiyaan inta inoo hadhay kaadh qaadashadii kaadhka codbixinta ee muddada 5 cisho ee hore ka socotay gobolka Gabiley oo runtii aynu si aad iyo aad u qiimo badan qaybtii hore aynu u qaadanay waxay idinka mahadnaqaynaa wasiir inaa maantana noogu timaadeen inaad nagu dardargelisaan oo nagu baraarujisaan oo nagu dhiirigelisaan inaanu qaadanno kaadhadhkaasi inta hadhay waxaan jecelahay mar labaad inaan halkan uga mahadnaqo
dadweynaha gobolka cagaaran ee gabiley ee sharafta badan leh mudaniyo marwaba mid yar iyo mid weyn carruur iyo ciroolaba sida qiimaha iyo qaayaha leh ee aad u soo dhowayseen wafdigii heer qaran ee inooga yimi hargeysa ee uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada intaa haddaan ka gudbo runtii waxqabadka xukuumadda iyo xisbigeeda kulmiye waxa ka hadlay maayarkii waxaana weeyaan sida qorraxdaa aanay u qarsoomayn ayaanay u qarsoomaynin ama ay u muuqataa intii ay talada dalka haaneedaysay xukuumadda kulmiye ee uu galwadeenka ka yimi mudane mujaahid axmed maxamed maxamuud siilaayo wixii ay qabatay dalka minbari ilaa galbeed way muuqataa insha allah biidnillaahi baari xukuumadda dambe ee kulmiyana intaa iyo in ka badanba way qaban doontaa walaalayaal saaxiibayaal waxaan jecelahay haddii allaha awoodda la oggolaado marka aynu kaadhadhka gacanteenna ku hubsanno anigoo aad ugu niyadsan in aan halkaan dib inooga noqon doonin waxaan idinka codsanayaa inaynu maalintaasi noqoto maalintii aynu u hiilin lahayn xisbigeenna xukuumaddeenna musharaxeenna shiraban mujaahid muuse biixi cabdi aad iyo aad baan idiin salaamayaa dadweynaha sidaa hortayba badha saabkuu sheegay waxaan uga mahadnaqaynaa sidii fiicnayd ee ay kaadharka u qaateen ee ay isku diiwaangeliyeen inta dhibanna waxaanu ku boorinaynaa inay dhammaystirtaan oo ay qaataan ay sidaa u shaqeeyaan ilaan xisbigii xisbi mucaarid maaha oo mid caytamaya maaha mid ballanqaad berri sheegaya maaha mid been akhriyaya maahee waa mid ku faanaya waxqabadka xukuumadda maanta taagane ay qabatay haddii xubnihii golaha wasiirrada ee hawl fulinta ahaa ee waxaa qabta ay ololaha ka kow noqdaan waxaa hubaal ah inuu xisbigu soo baxayo haddiise laga seexdo mana caytami karo mana faani karo dee waa halkaa dhigtaan buu yaallaa xukuumaddu uu yaallaa inuu meyd noqdo iyo inuu noqdo madaxweyne rasmiga marka maanta aan eegno qiyaasta iyo miisaankiinna aan eegnana waxaannu ku rajo weynay dadkan kaadhashi way qaateen gacantay ku wada hayaan siday u hayaan bay ku guri doonaan codka kuwan iyo kuway naga maqanee kaleba intiinna sidaa aad maanta u socotaan baan idinka rajaynaynaa inaad u hagar baxdaan oo aad la garab istaagtaan siduu xisbigu markaad mucaaradka ahaydeen baabaad la moodaa inaad ka shaxshax fiicantiine laakiin malaha waad isyar suuxinayseenoo xukuumaddu waxay islahayd in yar u yar dhagmiyo yar sugay maantaad soo baxdeene halkaa kaga hadhina intaan inaga maqanna inaynu dadkeennii halkay ku kala maqan yihiin waan ognahay waa 14 cisho sidaynu ugu dadaalina inaynu ku dadaalno gobolkeenna gabiley dhammaanteen halkaynu nahay waan wada ognahay waxbayaan layna soo hoosgelin waxaan leeyahay gobolka gabiley tashwiish kuma jiro waxaanu leenahay waa kulmiyana kaarkiina si fiican baanu u qaadanay ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inaannu haddaanu marka hore wafdigan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada fadhastaafka gobolka gabiley maayarka gobolka gabiley cuqaasha gabiley salaadiinta haweenka dhallinyarada aad iyo aad baan idin salaamayaa saxaafadda qaaliga aad iyo aad baan dhammaantiin idin salaamayaa waxaan u malaynayaa maanta arrintuu koowaad aynu u soconaa inay tahay lambar 1 kaarkii waynu qaadanay intiisii badnayd sidaynoo qaadan lahayn intaynoo hadhay innagoo markii hore intii laynaga filayay gabilahaan aan qaadan haddana haddii intay naga dhiman aynu wada qaadan weyno halkaas rasiidaro ay nagu noqonaysaa marka waxaan idigu dardaaraya horta maanta waxaan idigu dardaarayaa horta inta hadhay dhammaanteen inaynu guddiga dhiisha iskaga dhigno qof kastoo inaga midi inuu intaa kaarkaa qofba qof raadiyo arrintaa diyaar soo ma wadan yihin arrinta labaad waxaan u malaynayaa kulmiye iyo gabiley inaan la isku dardaarayn gabiley waa kulmiyena waa gabiley waxqabadka ay xukuumaddeenu inoo qabatayna haddaynu sana tiriya kabadad bixi maymana waxaynu ognahay halkaynu ka soo qaadnay inay meel madhan ahayd halkaynu maanta maraynaana inay tahay meel
gobolka iyo magaalada madaxda ku jirtay inay gabadha maanta ay marayso xukuumaddu waxa inaga dhiman inta cid ay noo buuxin kartana aanu garanna waa kulmiyo un mid kale aynu u baahannahay dhalinyartii firfircooneyd haweenkii firfircoonaa gobolkeenna gobol qaali oo haayo dowladii marwadu gobolkii cagaarna inoo bixisay waa magacaadi aad u qurux badan waxaan ugu dardaarayaa dhammaantiinba inaynu guusha kulmiye lambar wan halkeeni aynu meel geli doono iyo meel kasta sarayso waa maxaan dhowran caawa dhabi weeyaan nabadgelyaadna wadii salaamaya gobolkani sidaad ogtihiin waa oohaayadii somalilan weeye waana halkii lagu kala baxayey dhallinyarada dumarka iyo haweenka halkaa taagani waxay ku tusayaan in oohaayadii somalilan ay wada kulmiyo tahay meel kalena aynay ku ridaynin ayay ku tusaysaa mudane wasiir waxa loo socdaana waxa weeye waan ognahay shantii cisheen tagtay halkanaan joognay kaarka badidiinniina qaadateen waan ognahay haddana idinkama hadhayno oo waa ilaa qofka ugu dambeeya uu qaato waayo waa halkii lagu kala baxayey inta hadhayna inaan dadaalka bilowgiisa iyo dhammaadkiisa iyo dhexbartankiisu inuu isku mid noqdo ayaan ilaa iyo hadda idiin daba soconnaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan kuugu bishaaraynaynaa wasiirka madaxtooyada 58 kaan ee Gabiley waa diyaar kulmiyayna diyaar u yihiin waa bishaaro weyn waxaan leeyahay kulmiya uu soo baxaya waayo aabaheed baa nool aqoon maaha axmed jiraan nool uu soo baxaya waxaan leeyahay Gabiley waa meesha guusha weey waa nigu bishaarayna Soomaaliland meesha guusha waa Soomaaliland maanta ayaga sharaxan haddaad reer Gabiley u barateen إلى دولة لبريات كسيرة ما تيناك برينا إلى سيلة إلى عرقاو إلى تينا أو ويتسرنا أطفال ديار موتينا حتى ويتسرنا وإنه ما يمرجو إلى كعينا إلى سو ويتسرنا سومالنا ونحطنا سلطاننا هجامين أيام ديارنا إلى لاسقري إلى سيلة تجنو أو نأتي ويتسرنا وحنا شيء نادر يرجعنا أمالا بدينا كلنا سومالنا مشرح كسبوا ونسيرنا ما تلاقى مشرح يا أباك يا لو إلى سومالنا لي تاسلين وحنا مدير وزير هذا واحد له شيء جميل وحاول ديارته إن أتكل مسيسو كل ما ينحي لكن جميل وحكى من حبيسون ما هي وحويا جميل قبل كواب بصلاتي وإن الحران حوضك هنيرا حدبانيا وسكارا ووسوكو يمرجع دم بهوستينو أنا بهوستينو أكيد ما دورنا كوسو قرانشو كوسو أنا أدي بتشيلنا إن كمية هالكم وسوا علينا وهذا ركض تدو ما تغفليه idinka istooranaya nin walaba naftaada dooro adigu istooro ma aha hebel dooran laakiin maanta waxay taagan tahay xilligii reer Gabiley ay istooran lahaayeen xilligii kulmiye abaal buu ku leeyahay qarankana loo hiilin lahaa waynu wada dooranaynaa inaynu doorano diyaar ma u nahay inaynu gobolnimadeenna ku muujinno diyaar ma u nahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadiiba muxuu ahaa kormeerkoogu wuu soo dhammaaday aad iyo aad baa muxuu ahaa kolley mabsuud uga nahay haddaan muxuu ahaa wafdiga nahay waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa soo dhowaynta wanaagsan ee ilaa muxuu caabudla ilaa hoolkan taxnayd ee gobolka Gabiley ee gobolka cagaaran waxay idin bixiyeen baan u malaynayaa madaxweynaha qaranka marwada qaranka marwada qaranka marka calanka kulmiyana waa ka cagaaran oo sidaas ay muxuu ahaayeen isu raacayaan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa soo dhowaynta waxa kale oo aan muxuu ahaa kulley bogaadinayaa oo aan dhiiri gelinayaa oo aan taageerayaa
in aad kaarhka si fiican intii hore haddii aad soo dhammaysteen inta idiin hadhayna inaanu kaarh keliya idinka noqonin inaad kaarhka wada qaadataan kabacdina ugu hiilisaan murashaxa mustaqbalka mudane muuse biixi cabdi inaad ugu hiilisaan iyo xisbiga kulmiye insha allahu tacaala waxaan halkan madashan uga yar faa'iidaysanaya kelmad ducaa anigoo muxuu ahaayeen madaxweynaha qaranku iyo wasiirka madaxtooyadu hadda annagana hogaaminaya wasiir ahaan socdaal bay ku maqnaayeen imaaraadkay jireen mucaarid iyo dad muxuu ahaa yani maaragtay aad baa loo nashuushadaynayay madaxweynaha caafimaadkiisu wuxuu yahay waa arkayseen airportka markuu ka soo degay siduu u boodayay madaxweyne waa u ducaynaynaa inta doorashadaasi iyo inta ka dambaysaba haddii ay tiisu timaadana ila qof kastoo bini aadam ay u dhimanayaan hadday tiisu timaadana waxaan ku ducaynaynaa inuu ilaahay jannada geeyo haddii muxuu ahaa intaas waxaan soo ku ducaysanaynaa innagu doorashadaas oo nabadgeliyo oo isagu hogaaminayo inay nabadgeliyo inoogu dhammaato nabadgeliyo inay inoogu dhammaato insha allahu tacaala sidaasaan ilaahay walaalayaal waqtigoo kooban dadweynaha reer gabiley sida qiimaha iyo sharafka leh ee madaxdii igu horraysay u sheegtay ee aad u soo dhowayseen wafdiga ballaadhan ee wasiirku hogaaminayo waa sharafkii iyo karaamadii iyo qiimihii iyo wanaaggii iyo gobnimadii laydinku yaqaanay baad muujiseen aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihin waxaa mudane wasiir laguu soo dhowaynayaa adiyo wafdigaagaba waa waxqabadka muuqda ee aan la qarin karin ee sida cadceedoo kalea saxaabada lagu qarin karin ee xukuumadda aynu ka midka nahay ee odagay noogu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo uu ka fuliyey guud ahaan dalka gaar ahaanna gobolka gabiley oo maanta haddii la tiriyo ay cadceeddu inooga dhacayso waxaan reer gabiiley uga mahadnaqaynaa oo aan mar kale uga mahadnaqaynaa oo aan bari oo dhan uga sidaa mahadnaq weyn gobonnimadii iyo sharaftii ay sameeyeen ee ay ku qabteen dadkii abaartu dabada ka waday muddada dheer ee ay muddada dheer hayeen gobolka gabiiley iyo gobolka awdal oo weliba dili u badnayd gobolkaa gabiiley iyo gobolka awdalba mahadnaqaa iyo abaalkaas bari oo dhan baa idiin haya gobonnimona waa muujisteen gabdhihiinnuna way ku meel marayaan mid labaadna waxa weeye alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa gobolka gabiiley in muddaha imaka aynu joognaba waxaa ka socday horumar weyn anigu waxaan shalay joogay degmada ballimatan markaan dhiiri gelinayay waxaan ku idhi ilaahay gabiiley oo kalaa idinka dhigo horumarkay gaadhay oo kale ha idin gaadhsiiyo annaguna waannu idinla dadaalaynaa baan laakiin waxaa ogaataan dawladda kulmiye intay haysay meelo badan ayaa dhinaciinna sidaa u soo eegayay oo waxaa la lahaa uun wasiirkii madaxtooyadu xagguu ku maqan yahay gabiile kii maaliyadduna gabiile marwadina gabiile tacab baa idinku maqan tacab badan baa idinku maqan tacabkiina waa laydinka sugaya soo sidaa maaha waa laydinka sugaya gobonnimo inaan leediinna abaartii dhowayd baan ogaaday anugu aad baa u mahadsantiin intaa laydiin sheegay dhammaantiin madaxdiiga horraysa sheegtay inaannu eegno sida kaadqaadashadu u socoto isla mar ahaantaana aannu idinku dhiiri gelinno qaadashada kaadh iyo ilaalinta iyo si wanaag ugu ridista maalintaa laydiin sheegay hase yeeshe waxay in muuqata inaad iska dhiiri gashan tihiin inaad diyaar tihiin kollayba waxaad tihiin reer gabiley
xagga codbixinta xagga codaynta reer somaliland number 1 baa ka tihiin waxa weeye reer somalilandka kalena waxaa ka codsanayaa inay ku daydaan reer gabiley sidaa la sheegayna madaxdii hore nin aan reer gabiley taageerin may soo bixi jirin soo maaha maantana idinkaa sharaxan soo maaha waxaan malaynayaa uma baahnidin dardaaran uma baahnidin in laydin dhiiri geliyo maanta waxaa laydinka rabaa inaan kaararkaas idinka maqlay okay maanta waxaa laydinka rabaa si aydaan u shaqayn jirin doorashooyinkii hore inaad u shaqaysaan kaararka inaan xabad idinka noqon waxaan idinka rabnaa waad og tihiin waxqabadka xukuumaddan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed sulaayn miyaa la qarin karaa madaxweynuhu dardaaran buu inagaga tegi far buu meel inoogu fiiqay soo maaha far soo muu taagin fartii maynoo taagan tahay ma isku ognahay waayahay labadaa masalaba ugu codeeya 3 masalo ugu codeeya kulmiye waa xisbigii waxqabadka waa mar labaad waxayna naga tagay oo farteena ugu fiiqay sharaxiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland jacalahay Soomaaliya mar saddexaadkana wuxuu la soo socdaa qorshayaal aad u waaweyn oo waxtar noqon doona waxa mudnaanta koowaad iyo talabaad bay iska leh wax soo saarka in la kordhiyo xisbigan waxa uu qorshaysan inuu kordhiyo wax soo saarka sida beeraha iyo xoolaha gabilayna waa beeralay iyo xoolo dhaqato waxaa qorshihiisa ku jira 5 sano soo socda in wax soo saarka aad la biyo in laga maarmo cuntada dibadda laga keenayo halka laga soo saaro waxaa kaloo leeyahay gobolnimada xildhibaanku wuxuu sheegay in gobolnimada Gabiley u baahan tahay gobolnimadii maanta idinkaasu haya goobta gobol oo guriga xadka aad iyo ugu horrayn ilaahay baa subxaana wa tacaala mahadle inoo fududeeyey nolosha iyo nimcooyinkiisa kala duwan mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan bulshada iyo waxgaradka gobolka Gabiley madax iyo minjaba haween iyo lab iyo dhadig sidii u weynayd ee aad noo soo dhowayseen aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa aanu jecelahay inaanu bulshada gobolka Gabiley ku bogaadino sidii qiimaha lahayd ay uga qayb qaateen qaadashadii kaarka codbixinta waa waxa lagu yaqaano Gabiley doorashada iyo xamaasadeeda doorashadu waa xamaasad Gabileyna xamaasadda caan bay ku tahay mid looga baqayo maaha haddii cabtu ku badato iyo haddii lagu soo noqnoqdo laba halbay dabaran tahay taayaduna maanta taasay salku ku haysaa mid waxa weeye waa bogaadin iyo dhiirigelin iyo dardaaran waxaanu rumaysannahay gobolka Gabiley in diiwaangelinta qaadashada kaarka codbixintu ay si weyn uga dhammaystirmi doonto waxaanu u nimi inaanu niyadda idiin dhisno oo idin gubaabino ayaanu u nimi intaa marka laga yimaado gobolka Gabiley waa gobol maanta aan la isweydiinayn waxa uu yahay meesha liidata iyo qofka liita ayaa la isweydiiyaa halka uu yahay
halkaasaa madmadowgu galaa meel madmadow gala gabilay maaha waxa weeye gabilay waa kulmiye xukuumadda maanta ka dalka ka talisay Axmed Siiraan iyo madaxda ka yahay xisbiga kulmiye ka soo jeeda waa meel ay ku isran tahay oo ay caan ka tahay taageeradeedu dalka waxaa ka dhaxay 5 doorasho oo madax bannaan siyaasadda waxaa xeeran u ah dhacdooyinka xeerarka loo soo qaatay waa dhacdooyinka 5 doorasho dalka ka dhacay marka laga tago doorashadii 2002 ee golihii deegaanka ee xisbiyadii ay ku soo baxeen kulmiye uu nabadooga ku ahaa oo gobolka Gabiley uu saami weyn ka helay 4 xildhibaan buu halka ka helay 25 marka ka laga tago gobolka Gabiley ama waxay ahayd mar walba aqlabiyadu kulmiye ahaan jirtay doorashadii 2003 iyo tii 2005 iyo tii 2010 iyo tii 2012 mid walba kulmiye ayaa si xooga halka loo hogaamin jiray waxay tahay gobolka Maroodijeex oo ay la codahay kulmiye wuxuu adkaadaa marka Gabiley codkeedu soo dhaco caasimada wuu badiyaa caasimada Hargeysa kulmiye wuu badi jiray marka dibadaha loo baxo magaalada degmada Hargeysa ayaa kulmiye cod badan ku ima jiray laakiin marka Gabiley soo dhaco ayuu xabadliqi jiray meel Gabiley taa ahayd Gabiley kulmiye waa bogiyo wadane ayay u tahay Gabiley Axmed Siiraan iyo xukuumaddiisa iyo xisbiga kulmiyana saasay u yaqaanaan rag daddiisa haysbay ilaawaan isbana garan waayaan haddii rag maanta qoolaaleeyo weli cod ka doolayo waa dimuqraadiyada waa furan tahay ha baadhbaadheen waxsaanu leenahay annagu waanu naqaanaa kulmiye uu yaqaanaa dhulka codkiisu yaallo kulmiye ma lubin taageerayaashiisii intuu talada dalka hayay ma lubin Gabiley baa dhulka haddii maanta kulmiye lumiyey waxay ka muuqan lahayd siwaaricdeed iyo dareenka suuqay ka muuqan lahayd Axmed Siiraan iyo ma lubin kulmiye wuu abaalguday Gabiley oran mayno wax walba Gabiley waanu u qabanay oran mayno waanu wax dheeraadaanay xaq u lahayn baanu siinay hadalka waaba la bedelaayay kulmiye dhul badan oo aan looga codayn jirin buu dhisay waayo madaxweyne Axmed Siiraan waa madaxweyne ballaaran cadaalad buu dumada ku maamulayay 6 gobol ee dalka 4 gobol buu kulmiye mar walba aqlabiyad ahaan jiray Sanaag iyo Sool iyo Togdheer iyo Maroodijeex oo Gabiley ku jirto Saaxil iyo Awdal oo maanta kulmiye labadana aanu rajayna inaynu badsanno oo hormood ka noqono oo kulmiye muddada xukuumadda ahaa kasbay horumarna ka qabtay ballaaran kumuu salay waxqabadkoodii oo codkii ay ka codeeyeen cadaaladda iyo horumarka iyo ummad iskuwadka iyo midaynta siyaasaddii Axmed Siiraan iyo ballaadhnay ayay shirka ku haysay oo awdal lagu dhaqay oo Saaxil lagu dhaqay taas waxay keentay inay kulmiye u soo jebiso taageerayaal cusub waxaan maanta rajaynaynaa 4 gobol buu kulmiye ku badin jiray 6 gobol baynu ku badiyo si waliba baanu ugu badinaynaa waa tartamaynaa waa cayaar saaxiibtiinno oo nadiifa oo aan suldaaro iyo jabin midna lahayn haddii ragga qaadmoodayo sidaa oo aan ahayn tii qoladeeda reer Burco lagu dacaadeyn jiray run maahayn waana lagu dacaadeyn jiray tii ahayd haddii ninku ku dhaaf hadday kubadda ku dhaafto ninkii ku dhaaf waa cayaar saaxiibtiinno waynu ciyaarayna oo qarannimo oo hoggaanka dadkeenna doorasho ku imanaya waynu wax isu haniyeynaa waynu tartamaynaa waan loolamaynaa bunna iska dhibi mayno markaynu kala adkaanana waynu isu tanaasulaynaa waynu isu haniyeynaa qarannimadeennaa sidaa ku dhisan waxaannu leenahay kulmiye taageerayaashiisiibu haysta muu lumin wuu ka sii kororsaday maanta madaxweynihii Axmed Siiraan oo mustabeedkii oo odaygii xisbigana aasaasihii xisbiga kulmiye madaxweynaha dalkaahi mustabeedkuu fadhiya waa arrin dheeraada uu leeyahay waa kow wuxuu leeyahay taageerayaashiisii oo uu wax u qabtay oo dalkan horumar weyn uu ka hirgeliyey waxa weeye xukuumadda xisbiga kulmiye waa xukuumaddii waxqabadka waxbay qabatay
fagara waxaan wani baanaanu haynaa khajili mayno ruumana mayno waxaanay rag tookhaya oo baarka la baxay baan xisbiyada mucaaradkee dibadda tuban ee aan waxba haynay la shir yimaadaan kuwaas ummadda Soomaaliland baa noo xogsoori doonta shacbigaanu cadka wada doonaynaa waxaanu haynaa waxaanu qabannay oo aan iyagu keeni karin waxaanu haynaa wax runaanu qaban doono oo xisbiga kulmiye uu maanta hayo oo khibrad iyo waayo aragnimadii uu hayo wali anigu waxaanan hayo waan dhammaynayaa waxan kulmiye meela dhagax beena ma dhigo iyo Axmed Siiraayo waxa kaloo kulmiye maanta hormoodu oo murashax u ah hogaamiye cusub oo aan dalkan ragiisu argamaya oo ah hogaamiye shiraban aan leeyahay waa hogaamiye shiraban waa hogaamiye adag waa muusaqi xaaqi kulmiye qarankani maanta wuxuu u baahan yahay hogaamiye adag buu baahan yahay hogaamiye wanaagsan bay Soomaaliland maanta u baahantay oo duruufta adag kala dambaasha ninka Axmed Siiraayo ka dambaynaya waa inuu noqdaa nin adag وأنا نقولين هذا قرفني ما حوجان كذلكم ما تبير حبالتها الله وحوي وماشي لك ما هي لما تجيب مذوق شوجا الله حلو مكان الله يوحقك نحن نبغى بحث كارني مدني أو متى يسكوا ذكرى أو أقوس كيري كرا أو هذا الصومالي كم من الدين كرا حكامي هذا هو مدن ميل مريا أيه بحث موسى هو حكامي رجع قال كي معارضة أو موسى aan la socon baa waxay meelaha ka yiraahdaan waa askari waxa weeye dunida hogaamiyaashii ugu adkaa ee soo maray askar bay ahayd xilliyadaada waxaa lagu baxsadaa ninka adag ayaa lagu Soomaalidu waxay ku maamaadaa ninka kaa faras wanaagsan maalintaa ma gaadhi kulmiye maanta wuu ka faras wanaagsan yahay ayaynu leenahay kuwa xisbiyaanu loolayno waxay taadheen kulmiye waa xisbi mid ah oo aan khilaaf dhexdiisa ka jirin hal gaari buu wada saaran yahay jahlo wuu jeedaa xisbiga iyo xukuumadda kulmiyena way isku xidhan yihiin haddii khilaaf iyo hore loolan u dhacay xisbiga kulmiye dhexdiisa nabarrada waynagii dhinnay waynagii dhaynay boogaha waynagii boskiinay maanta meel quraynu u wada soconnaa oo ah suldaan ismaaciil oo waxaan leeyahay suldaanka gobolka iyo suldaankayagaba kulmiye waa mid dhinacna waynu u wada soconnaa muusena waa dhisaynaa waxay taageeraan ku soo ururinayaa xisbiga kulmiye waa xisbi qaran kulmiye maaha xisbi ay ku midoobeen laba qolo xisbi laba reer ka dhexeeyana maaha xisbi laba reer ka dhexeeya oo jeegana maaha waa xisbi qaran waxaas afartaa gobol uu maalin walba hogaamin jiray codkiisa haddii laba reer ku heshiis yihiin kuma hogaamiyeen dee afartaa gobol oo dhan labadaa reer ma degaan aragtidaasi waa aragti dadka maangaabka ah ama dadka muxuu ahayay kulmiye ka soo horjeeda ee ku cadayooda ay meelaha wadwadaan laakiin kulmiye waa xisbi qaran maantana wuu ka sii ballaadho waa xisbi weyn qarankan hadday qabyaaladii u cidi wado iyo cudur iyo kala qaybin waxa wado maanta ragga dibadda ka jooga ee mucaaradka ayaa ummaddan kala qoqobaya oo kala qaybinaya innagu waxaynu kuwa ummadda midaynaya qabyaalad muuse ku taageera ma lihin laakiin waxaan leenahay halkani waa strong hoolkii kulmiyena baa lagu taageerayaa muuse gobollada kalena muuse waxaa lagaga taageerayaa muxuu ahayey kulmiyena baa lagaga taageeraya aad iyo aad baan u bogaadinaynaa bulshada gobolka waxgaradka saxaafadda waayeelka maamulka gobolka duqa magaalada xubnaha golaha deegaanka dhammaantiinba waa idin hambalyaynaynaa waxaan ugu dambayn leeyahay waxaa inoo ballana kaarka aynu wada qaadanno waxaa inoo ballana
horumar nabad midnimo iyo kulmiye aad baa u mahadsantihiin munaasabadaasi kadib wafdigani uu hogaaminayo maxamuud xaashi cab ayaa waxa uu dhagax dhigay dhismaha xarunta taliska qaybta ee Gabiley oo laga yegleelayo magaaladani in wasiirka wasaaradda madaxtooyada oo uu hogaaminayo wafdi wasiiraa uu maanta inoo dhagax dhigi doono xafiiskii qaybta booliiska runtii waxaan idin sheegayaa inuu inoo dhammaystirmay oo uu shaqeeyo xafiiskii barasaabku maantana waxaa la inoo dhagax dhigayaa xafiiskii qaybta sidaa waxaynu ugu bowragaroobay isku jooggu waa faraska iyo ninka mar haddii xafiiska barasaabka iyo xafiiska qaybta booliiska la isla helo gobolnimadeennii maanta wax allaala wax ka dhimani ma jiraan sidaan ku fiicano cid kasta oo ka soo qayb kastay xafladan dhagax dhigista aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waftiga uu hogaaminayo wasiirku waanaan ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kolley booliis ahaan taliyaha qaybta booliiska gobolku waa sida la sheegay waa aniga guri kiraa baanu ku jirray maanta mar haddaad naga soo gaadheen ilaahay baa mahad leh waan idinka mahad celinaynaa waxay ka mid tahay waxqabadka iyo horumarka aad ku hogaaminaysaan qarankan aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin assalaamu calaykum xukuumadda iyo waxa weeye wasaaraddaadaba aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa meesha aynu maanta joogno baahi weyn baa loo qabay baahi aad iyo aad u weyn waynu ka warqabnaa ammaanka iyo doorku ku leeyahay dalka aad baan idinka mahad celinaynaa sidaa la sheegayna in dhibicda yar ee gobolnimada nuugu dhinnaydaynu yar xoqan jirnay ayay ahayd tiina maanta waa ku faataxaysay aad baan wasiir adigii waftigaad idinku mahad celinaynaa ku soo labaad bulshada gobolka Gabiley iyo maamulkeedaba bulshadii wax qabsata ee hami iyo himilo dheer leh ayaa runtii mudan in wax loo qabto la isbarbar taago madaxweynuhu wuxuu runtii dalkan ku hogaamiyaa siyaasadda in dadka la gubaabiyo dadku wax qabsadaan wax la yimaadaan waxaan ku ammaanayaa ku bogaadinayaa golaha deegaanka ee uu u horeeyo duqa maayarku ama duqu maanta waddadii aynu soo dhagax dhignay degmada Arabsiyo ee 1 kiiloomitir ahayd iyo waddada allay baday ay ka qayb qaadanayaan waa ku bogaadinaynaa waxaa dawladda hoose ay dawladaha hoose wadaan dawladda hoose Gabiley oo maanta waxqabadkeedii meeyarkan iyo meeyaradii ka horreeyay oo muuqday muddadii 7 sano ahayd xukuumadda Axmed Siilaanyo dawladda hoose ee magaalada caasimadda Hargeysa Berbera Burco Gabiley Boorame waxqabad weyn bay dawladda hoose muddadii sameeyeen xaqiiqdii waxa dad badan isweydiiyaa maxay u qaban waayeen waqtiyadii hore waxa lacagahaas waa wixii una walbaay cashuurta heli jireen iyo kabkii dawladdu siin jirtay wax cusub oo loo kordhiyay ma jiraan kaliya laba arrimood baa ku jira halka oo xikmada labadaasaan hoosta ka xariiqaya mid waxa weeye hami iyo himilo wax qabad baa xukuumaddan la timi maadaama ay la timi madaxweynaheedii koow ka yahay golayaashii deegaankana waxa ay la shaqeeyeen dawladdii dhaxay himiladii kula shaqeeyeen wax qabadka inay ku tartamaan laba meeshii wax qabsata waxa xukuumad ahaan annaguna aan xoog saaray inaanna wax u qaban meeshii dadaasha wata saddexaad waxaanu ka daynay gacan togaalayskii shaxaadkii waraaqii gaarkii loo soo qori jiray ama madaxtooyadu soo qori jirtay ama wasaaradda muxuu ahaayay arrimaha guud soo qori jirtay ama wasiiradii iska tabliiqayn jiray shaxaadi jiray ayaan dawladii hoose ka daynay lacagahooda siyaasadda ma gelino waxaanna dalka ku dhisay marka runtii intaas ayaa wax weyn abuurtay horumarka ay sameeyeen golahan deegaanku iyo kii ka horreeyayba iyo meeyaraduba oo meeyar amiinkow ka yahay aad baan u bogaadinaynaa arrintan madaxweyne Axmed Siilaanyo gobolkani waa gobol uu jecel yahay wuxuu ahaa gobolladii laga taageeri jiray ee aan ka warramayay isagoo madaxweynuhu horumarka cadaalad ku saleeya oo aanu eegin yaa kaa codeeyey ama kuu codeeyey oo ah astaamaha lagu garto hogaamiyaha ballaaran haddana wakhtigan oo doorasho loo dareerayo muxuu ahaa waxaan xoog saaraa waxqabadka waxaan xoog saaraa in doorashada dalkaanu ka qabanno dhaqaalii doorashadoo dhan baa dawladda ku soo baxsaday dhaqaale xumo badan baa qarankan ka jirta muxuu ahaayey abaaraa inagu dhacay muxuu ahaayey duruufihii adhigeenni baa la joojiyey waxyaalo badan baa jira oo runtii
ay tahay inaynu fahamno haddii aan duruufahaasi iman waqti horaa la dhisi lahaa maanta saldhigga qaybtan gobolka Gibilig waqti horaa la dhisi lahaa hase yeeshee iyadoo duruufahaasi xukuumadda ay la daris yihiin ayuu madaxweynaha markii aan u sheegay arrintan igu amray inaan fuliyo jacaylka iyo niyad samida uu gobolkan u qaba jirtay annagoo maanta aan muxuu ahay xoog saara inaannu runtii xoog saaro doorashada qarshaadkeedii oo dhammi nagu ay xukuumad ahaan ay waajib noqotay inaannu bixinno duruufo badan baa dalka hadheeyey iyo qarankan haddii aan hoggaamiyo waay araga oo aqoon-yahana oo dhaqaalayaani hoggaamin ilaahay subxaana wa tacaalaana mahaddiisa iyo galladiisa aanu inagu taageerin gaadhigeennu wuu liman lahaa xaqiiqdii waxaan arkayaa ashkhaas farkutirisa oo meelaha muxuu ahaayey nagu cambaareeya ama yidhaahda sicir barar baa lala dagaalami kari waayey waxa uu wanaagsanaan lahayd inay faham fiican u haystaan duruufaha waxyaalaha keena sicir bararka iyo duruufaha maciishadaha maaha somalilan oo keliya oo ah dal aan la aqoonsanayn oo xoolihii laga joojiyey oo duruufo adag haystaan ninka iska fisha waxa liba inay tog caadiya yihiin waa nimaan habeen jirin arrimaha qiimo dhaca lacagaha iyo sarifka doolarku korkiciisu arrin somalilan ku kooban maaha geeska afrika iyo dunidoo dhan bay ka jirtaa masar bay girgishow qaran weyna etoobiya maanta kor u kaca muxuu ahaayey soomaaliya hadalkeeda baddaa lacagtoodii baa joogsatay meelo badan oo ka mid a innaga lacagteennina way shaqaysaa kor u kacaasina dee sababa macquula baa yimid waayo lacagta xoolaha waxaynu ka heri jireen lacagaadu fara badan 350 milyan ayaa inaga soo geli jiray oo lacag adaga xoolaha 3 milyan iyo 500 oo neef baynu dhoofi jiray lacagta aadkeed waxaynu ku bedelano ma hayno marka waa duruufo waaqiciya sanadka waxa qaranka soo maray 7 duruufood 6 duruufood oo adag inaanu kala dabaalanaa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa waxaanay ahayd xukuumad iyo xisbi waay aragnimo leh ayaa qarankan hoggaamiyey haddii ay qaarkood hoggaamin lahaayeen kale wuu liman lahaa ama gaadhiguba waa qallibmi lahaa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa muxuu ahaayey duruufahaasoo adag haddana ka tegi mayno meesha mudan in la gufeeyo ay maanta tani ka mid tahay aad baa umahadsan gabagabadii waxa uu wafdigaasi kormeer indhaindhayna ku soo maray mashaariicaha kala duwan ee golaha deegaanka Gabiley ay ka fuliyeen magaalada tan Gabiley iyagoo mid u dul istaagay isla markaasina maamulka Gabiley ku amaanay mashaariicdaasi qaadkiisu socodka magaalada annagoo ka fikirana kobaca dhaqaalaha annagoo ka fikirana kor u qaadista bilicda magaalada waxaanu halkan ka hirgelinaa wadada afartahaad ee aynu joogno oo ah wadda afarhaada dhexdeeda aanu ka samaynay leerkii iftiiminta wadooyinka gacantana aanu ku hayno dhirayntii solar wey habeenkii oo dhan Gabiley halkaasay laafiyota waa run dhalinyarteeda iyo odayaasheeda waaweyn macaan kari taariikhda wadada in la sii wado riish loo sameeyo halka ay naga soo horjeedo qoortii Sheekh Caliya in insha Allah ta'ala wadada waxa ku baxay qarash $170,000 nooceedu waa nooca rooga macal solarteed $170,000 waxaan wasiiradii sheegaynaa inay tahay dakhligii aanu ka ururinay dadka reer Gabiley cashuurtooda $1 cid alla cid kale oo kuli ma jirto wuxuun bay ka mid la dagaalanka musuqmaasuq xafiditaanka hantida ummadda ee madaxweynaha qaranka Soomaaliland uu hor socodka noogu yahay farxad weyn bay noo tahay maanta wafdiga wasiirka madaxtooyada hogaaminayo oo dirdir gelinayay diiwaangelinta muddadeeda kooban in gobolka Gabiley ay qaataan isla markaana u kurgelayay xaaladda horumarka muuqda ee lixaad kale ee maamulka gobolka Gabiley iyo kan degmada maayirkii gurigiisa deegaanku ay ka hirgeliyeen degmadan Gabiley runtii wax qabadkan ku taaganahay sida uu maayirku sheegay waxa weeyaan hamigii himiladii madaxweynaha qaranka ee uu masiirka dhalinyarada inuu muujiyo inta aynu barnaamijkan lamida ku kulmi doono waxa idii daadihinayay isla markaasina barnaamijkan idii soo diyaariyay anigoo ah Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Chupa dhamaanba inta aynu barnaamijkan lamida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh iyo amaana Allah